wararka ugu dambeeya ee dhanka suuqa kala iibsiga ayaan eegi doonaa iminka. kooxda kubadda cagta ee Manchester City ciyaarahankeeda weerarka uga ciyaara Gabriel Jesus weli waxa uu bartilmaameed u yahay kooxda Real Madrid ee dalka Spain. wararka ugu dambeeya waxay sheegaan in ciyaarahanka heerka caalami ee dalka Brazil uu aqbali karo inuu u dhaqaaqo kooxda weyn ee Real Madrid, waxaana ciyaarahankan lagu magacaabo Gabriel Jesus uu iminka ka mid yahay xidigaha ugu muhiimsan Pep Guardiola. dhinaca kalena kooxda Wolverhampton Wanderers waxa ay la soo saxiixanayaan marka la eego xidig ayay dabcan soo qaadan doonaan. Everton ayaa dabcan ciyaarahan ay ka doonayaan, waana ciyaarahan 24 jir ayuu dabcan uu doonaya marka la eego tababare Nuno Espirito Santo oo kooxdan kubadda cagta lagu magacaabo Preston North End ciyaarahan ayuu ka doonayaa, waana Ben Davies ciyaarahanka lagu magacaabo oo difaaca ka ciyaara, waana 24 jir ciyaarahankaasi. marka ciyaarahankaas uu doonayaa si lamid ah Everton waxa uu ka doonayaa ciyaarahanka lagu magacaabo Keane oo difaaca ka ciyaara. marka wararka ugu dambeeya waxay sheegaan in Nuno Espirito Santo uu xoog saari doono suuqa kala iibsiga ciyaartooyda horyaalka dalka Ingiriiska ee Premier League marka dib loo furo. sidoo kalena dhinaca kale Arsenal waxa ay markaan kusoo biirtay raacdada loogu jiro difaaca shubka ee kooxda Wolverhampton Wanderers ninka lagu magacaabo Willy Boli ayaa wacdala ka dhigay kulankii Etihad Stadium ka dhacay maalintii shaleed, waxaana ciyaarahankan uu ka mid yahay xidigaha ugu muhiimsan kooxda Wolverhampton Wanderers. 2017 ayuu kusoo biiray kooxdan, waxaana kooxda Millennium Stadium ku ciyaarta uu qayb ka tan iyo xil ciyaareedkaasi waa 28 jir 91 kulan u ciyaaray dhammaan tartamada oo dhan kooxdan kubadda cagta ee Wolverhampton Wanderers, waxaana ciyaarahankan caalamiga uu markan loo arkaa bedelka saxda ee David Luiz oo una Emery uu arko mid aan la qabsan hanaan ciyaareedka kooxdan kubadda cagta ee The Gunners. wararka ugu dambeeya waxay sheegayaan in ciyaarahankan Willy Boli uu aqbali karo inuu ku biro kooxda kubadda cagta ee Arsenal. si kastaba Arsenal kulankii ugu dambeeyay Premier League gool iyo waxba ayay ku adkaatay, iyadoona goolkaasi u dhaliyay David Luiz ciyaarahanka lagu magacaabo. dhinaca kalena wararka kale ee ugu dambeeya haddii aan sii eegno kooxda kubadda cagta ee Manchester United waxa ay mar kale Arsenal ay albaabka u garaaci doonaan iyagoo ka doonaya ciyaarahanka Gabon Pierre-Emerick Aubameyang. wararka ugu dambeeya saake waxay sheegayaan in kooxdan kubadda cagta ee Manchester United isku day doonto suuqa bisha Janaayo in ay u dhaqaaqdo adeega ciyaarahanka heerka caalami ee Gabon. lama hubo in ciyaarahanka uu ku beeri doono kooxda The Gunners maxaa yeelay anraadi kooxda Manchester United maxaa yeelay waxa uu kula jiraa qandaraas waqti dheer kooxdan kubadda cagta ee The Gunners, isagoona ka mid ah mashiinada weerarka kooxdan kubadda cagta Arsenal kuwooda ugu fiican. marka Manchester United ayaana mar kale isku dayi doonta in ciyaarahankan inta aanu bilaabin Premier League ay isku dayeen, inkastoo ugu dambeyn ay ku guul dareysteen in ciyaarahankaasi soo qaataan. kooxda Celtic Glasgow ee horyaalka Scotland ka ciyaartana Leicester City ciyaarahankeeda lagu magacaabo Leicester City ayaa ciyaarahan ka doonaysa, waana ciyaarahanka lagu magacaabo Callum McGregor ciyaarahanka lagu magacaabo. Brendan Rodgers ayaana kooxdiisii hore ka doonaya ciyaarahankan, waxaana uu doonayaa inuu keeno kooxda ku ciyaarta Kimbawe Stadium ee Leicester City, waana ciyaarahan 26 jir ah. Neil Lennon ninka lagu magacaabo oo ah hogaamiyaha kooxda Celtic ayaanan laga yaabaa balyiri inaanu aqbalin inaanu aqbalin in ciyaarahankan 26 jirka si fudud uu ugu diro qalcadda ay ku ciyaarto kooxdaasi Celtic. xil ciyaareedka 2023 ayuuna gaaraya qandaraaska uu kula jiro kooxda Celtic Glasgow ee horyaalka Scotland ka ciyaarta.